السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلامي دمانتين بميل والبو عالم كجوكتان وانيقو ولالكينا أمين حسن إذن له كسو دوادا مركلة يوتيوب channel كيغا هداد كعصب تايني وحانكا عصانا يا إنا سبسكرايب إيسارتد آذن كهل مامن إنا تاواتد جنباليلكا سات أولو سعوتد مقالة سو سعودا saabado u jeedaan halkan waxaan ku hayaa afar lacagood oo kala duwan mid walba wadan gooni ayaa laga isticmaalaa saa u jeedaan tani waa 1000 shilin Soomaaliya waa lacagta Soomaaliya laga isticmaalo tanina waa 1000 shilin Kenya money tanina waa halka dollar Mareykanka tanina waa 10 yen meelaha ma ogi waa lacagta Shiinaha marka kulli horta مقطع شيء والبو مركات فيريست يعني wax un baad ka baranaysaa hada yani aad u focus gareysid maskaxdaada wax un ayaad ka baranaysaa maanta waxaan rabnaa in lacagahan aan wax yar aan ka qaadano ama tusaale yar aan ka qaadano horta dhamaantooda waa xaansho weeyaan sabab u jeedaan laakiin qiimo ay leeyihiin inkastoo asaas ay tahayna mid walbo mid kale waa si weyn tahay mise waa ka dheer tahay mise waa ka balaaran tahay sabab u jeedaan ma isku yani isku size ma ahan adiga hadda daawanaya hadaan ku dhaho labadan midkee baad dooran lahayd haddaad Kenya joogtid tabcan tan ayaad qaadanaysaa waayo waxaad ogtahay tan inay ka qiimo badan tahay halka dollar laakiin haddaad joogtid wadamaha kale waxaad qaadanaysaa halka dollar waayo waxaad taqaanaa dollarka taqaanaa tani ma taqaanid meequu yahay inuu ka badan yahay ama inuu ka yar yahay soo waxaad qaadanaysaa halka dollar laakiin qofka Kenya joogo wuxuu qaadanayaa kun shilin Kenya shilin way tan ayuu qaadanayaa waayo wuxuu og yahay inuu ka qiimo badan yahay halka dollar sidoo kale haddaad Soomaaliya joogtid haddaan ku dhaho halkan dollar iyo kunkan shilin kee baa qaadan lahayd waxaad qaadan lahayd halka dollar waayo waxaad taqaanaa inuu ka qiimo badan yahay 1000 shilinka saa u jeedaan kan waa hal kanna waa 1000 meeqa u dhaxayso 999 u dhaxayso laakiin wili still kan ayaa ka qiimo badan soo marka haddaad fiirisid adduunka yani dadka bini'aadanka waa sidaas ayagana qof walbo qof kale wuu ka qiimo badan yahay mise yani darajo badan ayuu qof kale agtiisu ka leeyahay dadku isku midkii laakiin waxaad arkaysaa qofka inuu qofka kale ka siiban yahay laakiin qofka yariiska ah la xishmeenayo waayo asiga ayaa kabsaday maanta hadaa aragtid qof qiimo ku yeeli waayo marnaha ka murugoonin waayo sababta waxay tahay waxaa jira dad aanan qiimaha garanaynin dad qaarna oo qiimaha garanayo waxaana qiimaha qofka ku xishmeenayo oo darajo ku yeelayo waa qofka kaliya qiimaha garanayo saan hore idin sheegay tani waa 1000 shilin Kenya shilin waa kana waa $1 qofka Kenya joogo wuxuu yaqaanaa tani hadii dollar ahaan laga dhigo waa $10 laakiin qofka aanan Kenya joogin wuxuu qaadanayaa halka dollar waayo ma yaqaano midan qiimaheeda soo marka qof walbo ma ku fahmi karo marka ha ka murugoonin dadka dhan kuma fahmayaan hana isku daynin inaad fahamsiisid qof walba qofkii ku yaqaano ayaa oo kaliya qiimo u yeeli doono inta aan ku wada kulmi doono muuqaal kale oo sidaan ah waxa idinka tagayaa sida iyo nabadgelyo